السلام عليكم سو dhawaada haddii aad channelka cusub tahay magacayga Dr. Jabir maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhabar xanuunka waxyaabaha sababo iyo sida loo daaweeyo runtii dhabar xanuunka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha inta badan dadka isbitaalada la imaadaan ama ay ka cawadaan runtii dhibaato badan ku haya so waxyaabaha sababo marka dhabar xanuunka markii laga hadlaayo aad u fara badan yihiin aad u badan yihiin so waxa ka hadli doonaa waxyaabaha ugu kumansan oo inta badan sababi karo in dhabar xanuun uu imaado lambarka koowaad culays badan oo qaada haddii aad tahay qof xamaali ah ama haddii aad tahay qof ka shaqeeya waxyaabaha culays ka qaado runtii waxaa tahay dadka aad iyo aadka ugu dhow inay maxaa la yiraahdaa dhabar xanuun imaado so inta badan istaada markii la joogo dadka inta badan imaado waxaa ka mid ah dadka dhabar xanuun kala imaanaya so marka waxaa fiican haddii aad tahay qof maxaa la yiraahdaa waxyaabaha culus qaado inaad iska ilaalisid sababtoo waxay keenaan waxyaabahaas in dhabar xanuun uu imaado lambarka labaad qaab dhismeedka wax ka qaldamo tusaale ahaan haddii aad tahay qof fadhi maanta oo dhan ku shaqeeyo runtii waxaa khatar ugu jirta inuu dhabar xanuun kugu dhaco waana dadka inta badan maxaa la yiraahdaa la imaada istaalada oo laga daaweeyo sababtoo ah qof mar kasta uu fadhiyo waxa imaanayso ama qaab qaldan u fariisto ama qaab qaldan u istaago wuxuu halis ugu jiraa inuu dhabar xanuun u imaado lambarka saddexaad jug ama turumo oo dhabarka ka gaarto haddii aad tahay qof jug ama markuu yaraay ama had mar dhow dhibaato dhanka gadaal kaga dhacday ama jug kaga dhacday ayadana runtii waxay khatar ku tahay maxaa la yiraahdaa kaliya khatar kuma xanuun waxay khatar ku tahay in damage ku imaado ama dhibaato ay ku imaato nervooyinka xagga gadaal maro oo runtii keeni karto qofka inuu noqdo wax la yiraahdo disable ama inuu paralyze noqdo lambarka afraad infections infections runtii ayagana waxay ka mid tahay waxyaabaha keeni karo in maxaa la yiraahdaa dhabar xanuun u yimaado khaasatan kaadi mareenka infections ku dhaco iyo kaliyaha infections ku dhaco runtii waxay keeni karaan qofka inuu kula imaado dhabar xanuun haddaba dhabar xanuunka yaa khatar ugu jiro ama yuu ku dhici karaa dhabar xanuunka runtii waxaa khatar ugu jiro dadka waaweyn ama oldska ama da'da runtii khatar ay ugu jiraan because markastuu da'daada ay sii weynaato markastoo carjawdaada iyo cartilage-kaaga ay sii yaraadaan waxyaabaha kale oo khatarta ugu jiro ama dadka kale oo khatarta ugu jiro waxaa ka mid ah dadka aanan exercise ka badan sameynin haddii aad tahay qof aan inta badan exercise badan sameynin ama socod badan sameynin waxaa adina khatar ugu jirtaa in maxaa la yiraahdaa uu kugu dhaco dhabar xanuun sidoo kale dadka qabo waxa la yiraahdo cudurro qaar sida osteoarthritis oo kale ama osteoporosis oo ah maxaa la yiraahdaa cartilage-ki ama waxyaabihii maxaa la intervertebral disc inuu cilad ka jiro waxay imaanaysa marka labada bones inay baaba'aan labada bones inay isxoqaan soo marka qofka inuu kula imaado waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa back pain oo waliba severe ah dhabar xanuunka runtii wuxuu leeyahay ka hortag aad u fiican haddii aad tahay qofka caawinayo dhabar xanuunka waxay ku xiran tahay waxyaabaha sababay dhabar xanuunkaaga haddii aad tahay qof fadhi badan oo maanta oo dhan fadhiyo runtii waxaa fiican inaad socod ka badaysid in maxaa la yiraahdaa markaa fariisanaysidna barkimo kale inaad gadaashaada dhigatid posture-kaagana ama qaabka u fariisanaysidna uu saxnaado sidoo kale haddii aad tahay qof inta badan taagnaado waxaa fiican inaad resting marka qaarkood qaadatid fadhiga badaysid haddii aad tahay sidoo kale qof aanan maxaa la yiraahdaa exercise badan sameynin ama socod badan sameynin waxaa fiican inaad socod badan sameysid exercise badan sameysid si maxaa la yiraahdaa dhabar xanuunka uu kaaga yaraado sidoo kale haddii aad tahay qof smoking ama qof sigaarka cabo ayadan runtii halis ay tahay inay kugu dhacdo back pain ama dhabar xanuun because dhaawacyo ku imaanaya laf dhabarka so waxaa fiican marka inaad iska yaraysid waxyaabahaas oo dhan si maxaa la yiraahdaa relief u dareentid ama iska dhaaftid maxaa lagu daaweyn karaa maxaa la yiraahdaa dhabar xanuunka haddaba haddii calaamadahan soo socda isku aragtid waxaa aad iyo aad u wanaagsan inaad booqatid xarun caafimaad maxay tahay waxyaabaha isku arki kartid lamarka koowaad dhabar xanuun oo joogto ah haddii xanuunkaaga uu yahay mid joogto ah runtii oo aanan ku dhaafaynin oo markasta joogto ah aad kaniiniyo badan isticmaalaysid xanuun baabi'iya la isticmaalaysid waxaa fiican inaad xarun booqatid lambarka labaad sidoo kale ay muhiim tahay inaad isbitaal booqatid waxay tahay haddii aad isku aragtid miisaankaaga uu yaraanayo adoo laf dhabarka lagaa hayay ama xanuun dareemaysay haddana waxaa ku darsatay miisaankaaga uu yaraanayo so waxaa marka aad iyo aad u wanaagsan inaad si ugu dhaqsi leh isbitaal booqatid sidoo kale haddii jug ay ku gaarto farag taruum wax la yiraahdo haddii ku gaarto ayadana waxaa fiican inaad isbitaal booqatid sababtoo ah taruumooyinka qaar waxay keeni karaan inay dhaawacaan nervooyinka gadaal maro so marka nervooyinka laf dhabarta haddii ay dhaawac ku imaatana waa qalas qofka waxay keeni kartaa inuu disable noqdo uusan mar kale ka kabanin so marka waxaa fiican
wax kasto ina prevention ahaan samaysatid mar kasto wax ku gaaraan ama mar kasto xanuun isku aragtid aanan relief ka noqonaynin ama ka fiicnaanaynin waxa fiican inaad sida ugu dhaqsiyaha badan isbitaal ama aaraysatid xarun caafimaad si loo jeekimo waxyaabaha maxaa la yiraahdaa keeni karo sidoo kale haddii aad qabtid waxa la yiraahdo arthritis oo kale ama osteoarthritis oo kale ama osteoporosis xanuun la yiraahdo oo degeneration ku dhacayo waxa la yiraahdaa intervertebral discigi oo muhiim ku ahay laf dhabarta haddii aad qabtid ayadan waxa aad u wanaagsan in maxaa la yiraahdaa xarumo caafimaad aad booqatid si lagaga daaweeyo waxyaabaha kale oo muhiimka ay tahay waxay tahay haddii aad isku aragtid waxa la yiraahdaa tumors ama mass gadaal kaga soo baxo kale waxyaabahaas oo kale ayadan waxa aad iyo aad u wanaagsan inaad booqatid xarumo caafimaad si lagaaga ogaado waxay yihiin loona daaweeyo insha Allah taala insha Allah xalaana kusoo gabagabay doonaa wixii su'aalo ama comments ayna xagga hoose noogu dhaafa oo kusoo jawaabi doonaa insha Allah